Marwo Ababa Kilise iyo sidoo kale tasaygeeda Gabriel Christos waxay isqabeen ama ay nolol wadaag ay ahaayeen in ka badan 50 sano. dhawaan waxay xuseen sanad guuradoodii 50aad ee ka soo wareegatay guurkooda iyaga oo munaasabadaasi ay garabkooda ay joogeen 9 caruur ah oo ay dhaleen iyo 17 caruur ah oo ay caruurtooda ay sii dhaleen. waxayna qoyskani nusqarniga nolosha ku midaysan ay sheegeen in ay muddada intaas la eg ay ku wada noolaayeen samir iyo isku dulqaadasho. baryahan dambe waxa soo badanayay qoysaska wada nool oo aanan arrimaha qoyska ka wada hadlin, kuwa wada nool oo ay caruurta kaliya ay inay korsadaan ay ka wada dhaxayso, iyo kuwa kaleeto oo kala taga kuwaasi oo nolosha ay isku fahmi waayaan. haddaba maxay yihiin waxyaabaha guurka khatarta geliya? inta badan lamaanayaasha ayaa inta ay ku guda jiraan xiriirkooda jacaylka aanan wadaagin xogaha qaar ee ku saabsan qoyskooda. lamaanayaasha xiriirku ka dhaxeeyo ayaa waxaa marmarka qaar ay suuragal tahay in ay aragtiyo kala gedisan ay ka qabaan nolosha guurka, iyo sidoo kaleeto in ay kala aaminsan yihiin fikrado kala duwan oo ku saabsan marka hoyga la wada tago. dabeecadaha rasmiga ah oo aysan lamaanayaashu isku soo bandhigan ayaa waxay qayb ka tahay waxyaabaha khatarta gelin kara guurka. been isu sheegidda ayaa sidoo kale waxa ay iyaduna ay tahay mid ka mid ah waxyaabaha halista u keena fashilka nolosha lamaanaha iyo guurka. lamaanayaasha xiriirku ka dhaxeeyo iyo kuwa isqababa ayaa loo baahan yahay in mar waliba ay runta ay isku sheegaan. heerarka waxbarasho oo kala duwan ayaa sidoo kale cilmi baaris la sameeyay waxa ay sheegtaa in ay khatar marmarka qaar ay ku keento si wada noolaanshaha lamaanaha oo aanan wax tixgelin ah aanan siinin inta badan waalidiintooda labada dhinac ayaa qayb ka ah waxyaabaha khatarta geliya burburna u keena guriga. Marwo Ababa waxa ay sheegtay in sodohdeeda iyo sodogeeda ay u aqbashay una soo dhaweysay sidii labadeeda waalid, waxayna sheegtay inay qayb ka qaateen farxadda noloshooda ee guurka. ragga iyo dumarka mararka ugu horeysa waxay nolosha ku midoobaan waxay isku dayaan in midba midka kaleeto uu isku dayo in uu ismuujiyo. lamaanayaasha oo xilliga ay soo dhawaato waqtiga aqalgalkooda aanan iska warqabin xaaladooda dhaqaale ayaa iyaguna qayb ka ah burburka iyo sidoo kale kala tagga ku yimaada ama khatarta geliya xiriirka lamaanaha. dadka lamaanaha oo aanan jeebabkooda ama akoonadooda gaarka ah aanan isla wadaagin ayaa iyaduna waxa ay tahay khatar ka mid ah khataraha ugu halista badan ee burburiya guurka. haddaba si khatarahaasi oo dhan looga hortago waxaa loo baahan yahay in labada qof inta aysan isguursan ka hor ay isweydiiyaan dhammaan arrimahan qoyska ay doonayaan inay dhistaan iyo nooca uu qoyskooda u ekaanayo kadib guurkooda. waxaa sidoo kale muhiim ah ama lagama maarmaan ah in ay isweydiiyaan lamaanuhu hadafka ay qoyska ay u dhisanayaan. haddii aanu caddayn hadafka lamaanuhu uu isku guursanayo ama ay qoys u wada yaglaylayaan, waxa ay meesha ka saari doontaa in waqti kooban kadib lamaanuhu isku dhacooda oo farabato uu sabbo in ay kala tagaan. waxaa sidoo kale muhiim ah in la caddeeyo muhiimadda qofba qofka kale uu u leeyahay in qoys la dhisto. haddii aana caddayn muhiimadda ama ujeedka weyn ee loo dhisanayo qoysku lagana midaysnayn, waxaa sahlanaan doonta in labada qof ay isku fahmi waayaan muhiimadda qoyska uu qofba qofka kale uu u leeyahay. waajibaadka saaran labada qof oo la kala caddeeyo haddii aysan dhicin inta badan waajibaadka labada qof ee nolosha wadaagaya uusan kala caddayn, waxa meesha ka bixi doonta in labada qof qofba qofka kale uu ku hadlayo shaqooyinka iyo howlaha nolosha looga baahan yahay. dhammaan markii aad arrimahaasi aad isla meel dhigtaan qofka aad nolosha wadaagaysaan, waxaa sahlanaan doonta in dhammaan khatarihii horeeto aynu soo xusnay ay meesha ka baxaan oo ay yaraadaan. balse taasi cagsigeeda haddii ay sidaasi samayn waayaan lamaanayaasha, waxa fududaanaya in durba uu dhasho isku dhac lana xallin waayo khilaafkooda. maxay yihiin dhibaatooyinka ugu waaweyn ee lamaanayaasha aanan isweydiin su'aalahaasi oo idil ay la kulmaan? in badan marka labada qof ee xiriirka ka dhaxeeya aanay isku calool furnayn ama aysan isla wadaagin xogaha rasmiga ah ee noloshooda sida gaarka ah u qoseeya, waxa badan doona isfahamwaaga ayaana sabab u noqon kara in burbur uu ku yimaado qoyskii dhisnaa ee dhowaan la yagleelay. isfahamwaaga ayaa sidoo kale wax uu halis ku yahay sii wada noolaanshaha lamaanaha. balse haddii ay dhacdo in dhammaan qorshooyinka horeeto aad isla soo fahantaan, waxaa dhici doonta in qoyskiinu uu ahaado mid mid sii nagaada oo muddo dheer dhisnaada. is-aaminaad xumo ayaa sidoo kale ka dhalan karta haddii ayna dhicin in aad isku calood furnaataan lamaantaada ama lamaankaada. is-aamin la'aanta ayaa iyaduna waxay tahay khatar ama dhibaato sababi karta in qoysku uu burburo. faragelinta ka baxsan labada qof waxay tani inta badan ay imaataa labada qof markay isfahmi waayaan
in dad kaleeto oo ka baxsan ama ka socda labada dhinac ee qoysaska labada qof ay ka soo kala jeedaan in ay arrintooda xal ay u gaaraan, balse faragelinta badan ee dadka shisheeya waxay idin keeni doontaa ama waxay lamaanaha ay u keeni doontaa in uu sii bato isfaham waagiina. mar walibana suuragal ma ahan in ay mar waliba dad kaleeto ay idin xalliyaan. dhibaatooyinka ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah kala duwanaansho dheer oo u dhaxaysa dhanka dabeecadaha. tani waxa ay keeni kartaa in qoyskiinu uu si fudud ama si sahlan uu ku burburo. waa run in dadka bini'aadamka ah aysan isku dabeecad ahayn, balse waxaa loo baahan yahay marka aad qofka nolol wadaagaysaan in aad inta badan isku daydaan dabeecadihiina in aad isku keentaan oo waxyaabaha qofba qofka kaleeto dhiba uu iska daayo. ugu dambayn waxaa loo baahan yahay si jiritaankiina uu usii xoogaysto in aad lahaataan hadaf midaysan. hadafka oo mid ahaada waxa uu sahli karaa in labada qof ee isguursanaya ama labada qof ee haatan dhowaangalka ah ay muddo dheer ay sii wada joogaan. haddii aanu labadiina midba midka kaleeto hadaf gooni ah uu ka leeyahay guurka ama nolosha, waxaa sahlanaa doonta in qofba qofka kaleeto markii uu hadafkiisa uu ka gaaro ama uu ka waayo uu ka tago. balse hadaf midaysan oo aad ka yeelataan noloshiina waxa ay sahlaysaa in aad si fudud ama aad si sahlanba aad ku sii wadataan noloshiina waqti dheer. waxayna dhammaan kuwana yihiin caqabadaha iyo sidoo kaleeto xalalka sahli kara in nolosha guurkiina ay sii raagto.